wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sanaag ayaa daahfurtay bilowga ololaha ciribtirka cudurka dabaysha ee gobolka Sanaag. Munaasabadii shaacinta ololahan cudurka dabaysha oo lagu qabtay xarunta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka ee heer gobol iyo heer degmo. xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Ceeri Gaabo, madax dhaqameed iyo bahda wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sanaag. waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay madaxa wacyigelinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sanaag, Caasha Macalin Sharaf iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Naasir Cabdiraxmaan Maxamed oo labadooduba sheegay muhiimadda talaalka cudurka dabaysha iyo carruurta laga talaali doono. maanta ay tahay 3 bishii Oktoobar waxay noo bilaabmay kaambeygeenii booliyada ee roonkii labaad. marka waxaan doonaynaa ay tahay fariinta aan maanta halkan faraynaa. 3 arrimood baan ka hadlaynaa, 3 fariimood baan farayaa. 3da fariimood aan farayaa waxay tahay horta mid wacyigelinta waxaan leeyahay message-kan aad sidaan waxaan doonayaa si maaragtay hagar la'aan in aad u gaarsiisaan bulshada una sharaxdaan muhiimadda uu leeyahay talaalku. waayo dhibaatada maaragtay ay dadkeena ka haysta waad ogtihiin. saaka waxa aynu halkaan aynu ku daafuraynaa waa wacyigelintii ka horeysay barnaamijka ama talaalka booliyada akhlaaqiyan iyo diin ahaan iyo barnaamijyada inta waxa ugu fiican intaan qofka aan loola imanba dawadii ama talaalka intaan la siinin in ka horta laga wacyigeliyo ama loo sheego wuxuu yahay wuxuu faa'iido leeyahay iyo waxa uu mustaqbal ahaan u qabanayo. gobolka Sanaag dhammaan ilaa baran ilaa iyo kooniisa kale hadda la ka dhigo saaka wacyigelintana way ka bilaabaysaa sidan oo kale. waxaa iyaguna munaasabadii lagu daahfurayay talaalka cudurka dabaysha ee gobolka Sanaag ka hadlay madax dhaqameedka gobolka Sanaag iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Ceeri Gaabo oo dhammaantoodba bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay ubadkooda ka talaalaan cudurka dabaysha. gabagabadiina gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay la shaqeeyaan kooxaha talaalka ee fulinaya ololaha talaalka ciribtirka cudurka dabaysha oo maalinta beritaa si rasmi ah uga bilaabmi doona deegaanada gobolka Sanaag iyo guud ahaan degmooyinka Somalilandba. waxaan jeclahay in shaqaalaha lala shaqeeyo hadday tahay dawladda ama booliiska oo nabadgelyada ilaalinaya, hadday tahay waalidiinta oo carruurtii guryahooda ku jiraan oo geysanaya codka ay kula hadlayaan shaqaalahan wacyigelinta loogu talagalay waa inay waayeel ku qaataan. waliba dumar baa guryaha jooga oo hadeer badanaa loogu tagayaa. shaqaaluhuna waxay u badan yihiin dumar. guryuhu waa guryihiinii, waad gelaysaan, dadku waa u sheegaysaan, waa wacyigelinaysaan. Wayunis Sheekh Axmed, Universal TV, Ceeri Gaabo.